shirkadda Lota Poultry Farm ayaa ku guuleysatay inay markii ugu horeysay Somaliland ka dilaaciso beedkii ugu horeeyay ee digaaga hilibka kaasi oo loo isticmaalayo cunto kumanaan xabo oo digaaga ayaa dilaacay 8 Abriil isla markaana loo isticmaalay mashiino loogu talagalay oo casri ah oo ay ku jiraan muddo 20 maalmood sida ay digaaga duba 20 gaasi cisho ugu dilaaciso Dr. Maxamed Cabdulmajiid oo Dr. Masri ayaa ka hadlay taariikhda cusub ee ay Somaliland ku soo kordhiyeen shirkadooda Lota. هذا المشروع يعتبر إضافة جديدة لأرض الصومال وهيفتح آفاق جديدة لمشروعات جديدة في الدواجن. إن شاء الله waxa uu sheegay in markii ugu horeysay ay shirkadda Lota ku guuleysatay in digaag Somaliland ku dhashay isla markaana ku barbaari doona loo iibgeeyo suuqyadiisa. waa markii ugu horeysay buu yiri Somaliland beed lagu dilaaciyo caafimaadkiisu wanaagsan yahay oo aan loo isticmaalin kiimiko iyo waliba antibiyootig digaagaasi oo Hargeysa ku koraya Hargeysa oo cimiladeeduna wanaagsan tahay Dr. Masriga waxa uu sheegay dal kasta waxa uu isku filnaansho gaadha marka uu helo cunto ku filan oo dalkiisa ka soo gooda مشروع الدجاج شركة Lota waxa uu ka yahay mashaariic ay shirkadu wado oo cunto ka filan Somaliland laga hirgelinayo في هذا المشروع انه هو كان في مقولة بتقول ان هرجيسة لا تصلح ابدا لانتاج كتاكيت او تفقيس بيض. دكتور عبد الرحمن جامع ayaa ka hadlay digaaga iyo meelaha la gaarsiin doono iyo doorka ay ku leedahay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo waliba kalluumaysiga Somaliland. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ka ganacsada digaaga iyo hay'adaha ka shaqeeya livelihood and food security oo iyaguna dadka reer miyiga ah digaag u qaybiya inaan u dilaacin doono digaag tayo leh dhakhaatiir iyo khubaro ka shaqeysana ay jirto wasaaradda xanaanada xooluhuna ay supervise gareyso ay markasta noo soo dhirto dad supervisories oo dhakhaatiira oo rog cadaaya oo hawsha xaggaan markasta marinayno nala socda. Xaaji Maxamuud Bulaale oo kamid ah maalgashadayaasha shirkadda Lota ayaa ka hadlay mashaariicda kale ay gacanta ku hayaan. waxaan ku tala galsanahay insha Allah bidillaahi kariim inaan dhammaan gobolada Soomaaliya oo Puntland haday tahay Muqdisho gobolada kale maartay xamar iyo hareeraheeda Allah waxa soo gaarsiinaa baan doonayna ma garanaysa ta kale taariikhda waxaan ku galay beed lagu dilaaciyo oo halkan lagu sameeyo waa kii ugu horeeyay Somaliland maartay lagu sameeyo marka anigu maartay waxaan dan kale kama siirihi laakiin waxaan doonayaa maartay wadanka shaqo abuur laga sameeyo shirkadda Lota ayaa waxa ay koonfurta magaalada Hargeysa ka hirgelisay mashaariic kala duwan oo digaagu ugu horeeyo isla markaana waxa qayb ka calafka xoolaha digaaga oo iyadana la samaynayo warshadaas oo farsamayn doonta isla markaana suuqyada Somaliland gaarsiin doonta digaagan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee Somaliland lagu dilaaciyo isagoo beeda waxa loo isticmaalay mashiino casri ah isla markaana waxa lagu guuleystay in uu qarxo isagoo nool oo caafimaad qaba dhakhaatiir isugu jira Carab iyo Soomaali ayaa ku hawlan inay ka shaqeeyaan arrintan iyagoo kaashanaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo waliba kalluumaysiga Somaliland. digaagan ayaa la filayaa inuu kaafiyo suuqyada Somaliland ee digaaga lagu cuno guud ahaan gobolada dalka. عبد الكريم سعيد صالح تلفزيون كون كيبل هرقيسة.